wow sida arkayso waan soo qurxiyay anigu waana soo dhaweeyay waana soo habeeyay sidoo kale waxaan ku soo qoray farta ayaan ku soo qornay waan soo design gareeyay run ahaantii ducadii baan ku soo qoray run ahaantii taariikhda waqtiga meesha ayaan ku qornay ama goobta iyo goorta iyo waqtiga ayaan ku qornay sidoo kale ducadii ayaan ku qornay aad iyo si qurux badan baan u soo design gareeyay waxaan rajeynayaa in sidoo kale u soo design gareysay haddii aad sticker-kan run ahaantii u baahan tahay kaliya waxaad ka heli kartaa barta Telegram-ka si aad noocan oo kale u design gareyso noocan laftiisaan kuu soo dirayaa waxaan kuu soo dirayaa insha Allah tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض داوديال كسو دوادا كنالك إسلاميك تكنولوجي سيدا لو دا سعوتين داودياشا قيمها بدن نغو حيران أسبوعي هروحا نسميني مهر وعن أيانو ديساين كرايني ستيكر كان مهر وعن ليلة أيانو ديساين كرايني kadib markaynu design garaynay run ahaantii cabashooyin fara badan baa soo baxay cabashooyinka soo baxay waxa kamid ah farta run ahaantii waan xaliyay kadibna farta qaabka loo soo dhowr gareeyay mar labaad ayaan ku celiyay shayga labaad ee run ahaantii laga cabanayay wuxuu ahaa materialkan aan isticmaalay iyagana insha Allah tacaala muuqaal ayaan soo geliyay shayga saddexaad ee laga cabanayay wuxuu ahaa background-ka qaabka looga remove gareynayo sawiraanta intaba waynu xalinay insha Allah tacaala sticker-kan maanta samayn mayno laakiin sticker ka duwan baynu samayn doonaa oo waxaan samayn doonaa kan ayaynu insha Allah tacaala samayn doonaa sticker kan baynu design garayn doonaa insha Allah tacaala anoo ku siin doono dhammaan materialka kuna tusi doono mid kasta sidaan background-ka uga jaray materialka dhammaantood Instagram-ka ka heli doontaa aan idhaahdo Telegram channel-ka ayaad ka heli doontaa insha Allah tacaala ilaa fargalada ilaa wax kasta waad ka heli doontaa waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala inaad nala socon doonto haddii aanad muuqaaladii hore soo daawan insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaad soo daawan doonto insha Allah tacaala muuqaalada ku khuseeya insha Allah tacaala waxaad ka heli doontaa commentiga insha Allah tacaala commentiga ugu horeeya soo dhigi doonaa sidoo kale insha Allah tacaala maalinta ku xigtana kan ayaynu design garayn doonaa aan soo dhaweeyo kan ayaynu design garayn doonaa run ahaantii sidaad arkaysaan run ahaantii kan waa uu ka duwan yahay run ahaantii kuwaynu hore u soo sameynay insha Allah tacaala waynu ka bogan doonaa cashirkeena ayaynu cala duul insha Allah tacaala u geli doonaa haddaba ka hor intaynaan muuqaalkeena u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ku dhufato insha Allah tacaala muuqaalka aad daawanayso kadibna aad ku dhufato halkan gambaleelka kadibna aad ka ugu sareeya aad dooratay all ay ku qoran tahay isla marka daqiiqada aan soo gelino muuqaalku waa uu soo gaari doonaa 1 minute xataa ka habsaami maayo insha Allah tacaala aan ku noqon insha Allah tacaala cashirkeeni haddaba si aynu application-ka Pixel Lab aynu soo kicino marka ugu horeysa waxaan u ahaa qofkii aan soo dejisan waxa uu u baahan yahay inuu tago Google Play Store-ka Play Store-ka wuxuu ku qori doonaa insha Allah tacaala Pixel Lab ayuu ku qori doonaa halkan uu ku qori doonaa Pixel Lab Pixel Lab waa application kan aniga oo igu jira haddii aanu kugu jirin waad soo install gareysan doontaa sidoo kale waxa muhiim ah markasta inaad muuqaaladii hore soo daawato sababtoo ah inaad la qaybsan weydo ayaa dhici karta haddaad application-ka wax hore kasii taqaanayna ahlan wa sahlan soo dhawow baan ku leenahay kadib open ayaynu odhan doonaa application-ka marka aynu soo furno insha Allah tacaala kadib markaynu application-ka soo furno qaabkan oo kale ayuu interface-kiisa inoogu soo bixi doonaa marka ugu horeysa tagaskan ayaynu iska delete garayn doonaa insha Allah tacaala kadib halkan ayaynu tegi doonaa saddexda dhibcood si aynu size-kiisa u bedelno kadib halka image size ay ku qoran tahay aynu ku dhufanaynaa intaa kadibna halkan waxaan ka dhigi doonaa insha Allah tacaala 781 baynu ka dhigi doonaa halka kalena sideedaynu ku dayn doonaa intaa kadib halkan baynu okay odhan doonaa bartan baynu ku dhufan doonaa okayda kadib saas ayuu u dheeraan doonaa kadib waxaan isku dayeynaa insha Allah tacaala sidiisaas ma iskaga daynaa background color-ka kadib shape baynu halkan kaga soo dari doonaa insha Allah tacaala shape-kaas halkan shapes ay ku qoran tahay ku sii dhufanaynaa kadib markaynu halka ku dhufano kadibna shape-kan aynu qaadanay baynu tigarayn doonaa waa shape-kan ayaan qaadanaynaa ugu sareeya kadibna saas baynu u leegaysiinaa meeshaynu ku fit garaynaynaa dhinacyada ka jiidaysa caadi baad meesha u leegaysiinaysaa sababtoo ah sababtan shape-kan u qaatay waxa weyn material baan ku shubi doonaa sidoo kale color-kiisa horta intaanad waxba meesha leegaysiin bas aan iskaga ka bedelin halkan ayaa tagi doontaa calaamadda bartanka ee shapes-ka maamusha sidoo kale weyn halkan ku tigaraysan tahay sidoo kale color-kiisa ayaa wax ka bedeli kartaa tusaale ahaan waxaan ka dhigayaaba adoo hadda midabkaas oo kale aan ugu horeyn ka dhigaynaa asaan kaas baan ka dhigi karnaa kadibna in meesha si fiican baynu hadda u leegaysiinay kadibna halkan aynu tagi doonaa mar kale aynu soo qaadan doonaa shapes-ka aynu mid soo qaadan doonaa
waxaynu soo qaadanaa tusaale ahaan kan ayaynu soo qaadan doonaa midabkiisana insha allahu tacaala waxaynu ka dhigi doonaaba kii buluug baynu ka dhigaynaa kadibna tusaale ahaan half kala badh oo kale ayaanu leegeysiinaynaa saasoo kale aan ka dhigaynaa waxaynu leegeysiinaynaa halkan kadib markaynu kala badh aynu ka dhigno haddana waxaynu kusoo dari doonaa mar labaad waxaynu kusoo dari doonaa insha allahu tacaala halkan calaamada wadarta tegi doonaa kadibna waxaan kusoo dari doonaa halkaa shaybiis ay ku qorantahan ku dhufan doonaa kadibna halkaa ishaas aynu soo furi doonaa si aynu shaybiska aynu usoo furno kadibna waxaan tegi doonaa mid circle aynu kusoo dari doonaa tan circle ka ayaan kusoo daraynaa kadib markaynu tan kusoo darno colorkeegaasaan isooga daynayaa saasaan u yar weyneynayaa kadibna saas baan u yar kala jiidayaa ukun camal oo kale aan ka dhigi doonaa insha allah saa markaan xoogaa u yar weyneeyo saa ukun oo kale markaan ka dhigo ayaan xoogaa weyneynayaa markaas haddii aabaha wadali inoo ogolaado kadib markaynu xoogaa saasoo kale u weyneyno shapekan bluega ah shapekan cadaanka iyo kan bluega ah baynu isku jari doonaa insha allahu tacaala baynu isku tirim garayn doonaa sida laiskugu tirim gareeyo waynu soo baranay haddii aad nagu xidhnayd hore noogu xidhnayd halkaas baynu tegi doonaa hanu dib u sharaxe halkaas markaynu tagno kadibna labada ugu sarreeya bay haay kaa circle-ka iyo kan bluega ah baynu isku dhejinaynaa kadibna halkan hoosta in taabanaya halkaas kadib marka halkaa taabto kadibna labadan ayaan tig garaynayaa gacanta ayaan saaraya labada bogas kadibna tig waa check mark ayay yeelanayaan kadibna halkaas baan ku dhufanaya labada rectangle ayaan ku dhufanayaa kadib markaan labadaa ku dhufto kadib qoraalka ii soo baxa okay baan iska odhanayaa kadib waad arkaysaa imika labadan way isku wada dhegsan yihiin way isku dhegay labadaas sida kuu muuqata kadibna waa inaad halkan shaybiska waa inaad joogaa tani waa inay select garaysan tahay sidoo kale waa inaad halkan ay highlight garaysan tahay alaabtan aan isku dhajiyay labadan shay baan isku dhajiyay waa inay highlight garaysan tahay marka xaggan ayaan u soconayaa ilaa aan gaaro meesha ay ku qoran tahay color erase halkan waynu soo furi doonaa toolka in badan baan aad u isticmaalay inta ay la socota run ahaantii markastana qofka designerka ee wax sameynaya inuu isticmaalo waa muhiim kadibna halkan ayaynu ku dhufan doonaa insha allahu tacaala calaamada tigta markaynu halkaa ku dhufanno waad arkaysaa run ahaantii qaabka ay noqotay kadibna waxaan sameynaynaa waynu yar weyneysan karnaa sas baynu yar weyneysan karnaa okay ilaa kala badh meelaha si fiican ba u leegaatay kadibna halkan ayaan tegi doonaa waynu log baynu ku ridan doonaa deetana quful baynu ku xidhan doonaa si aan shaybiskan aan samaysanay nooga dhaqaaqin kadibna haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kusoo dari doonaa kan hoosta texture baynu ku dari doonaa waa kaa hoosta waxa weeye waa colorkan waa kan cas shapekan cas weeyaan qufulkaynu ka qaadi doonaa qufulka markaynu ka qaadno halkan baynu iman doonaa saasaynu u taaban doonaa hadda waa highlight gareysay waxaan ku garanayaa halkaasna horta joogaa shapeskiina way isoo baxeen waa uu highlight gareysan yahay sida awgeed halkan baan tegi doonaa halkaa texture ay ku qoran tahay color kale baan ku shubayaa waxaan ku shubayaa color aan galleryga kasoo dooranayo kadibna halkan ayaan ku dhufan doonaa galleryga si toos ii geyn doonaa insha allah kadib kan ayaan colorkeeda ku shubayaa insha allahu tacaala telegramka ay noo yaalaan run ahaantii qofkii raba insha allahu tacaala halkaasuu insha allahu tacaala ka download garaysan doonaa dad badan oo kusoo biiray waan arkayay marka saas ayaan u jiidaynaa sidaasaan u jiidaynaa tusaale ahaan colorkaas baynu rabnaa saafiga ah colorkaa dambe ayaynu rabnaa waxoogaa baynu saa u yaraynaynaa kadibna saasaynu u leegeysiinaa insha allahu tacaala meesha kadib markaynu qaabkaasoo kale u leegeysiino tusaalehaan colorkaas baynu rabnay colorkaa saafiga ee gebigeeda kumayna wada darsanayn intaa kadib halkaasaynu ku dhufan doonaa calaamada yare hoosta ee tigta kadib markaynu ku darno imika waxba weli hadda iskamay bedelin weli hadda tig baynu siin doonaa sababtoo ah colorka kale ka awood badan colorkiisan caadiga baad imanaysaa colorkiisan caadiga kadibna colorkiisan caadiga markaad timaado halkan ayaad xidhaysaa halkan ayaad xidhaysaa imika colorkii aan kusoo darnay ayaa run ahaantii backgroundkiisa uu yeeshay sidoo kale haddii ilaahay waxaan kusoo dari doonaa insha allahu tacaala sawiradii si aynu sawirada ugu soo darno marka ugu horeysa waxaan u baahanahay sawirada inaynu backgroundka kasoo masaxno marka applicationkan waynu ka bixi doonaa sawiradaynu backgroundka kasoo masaxan doonaa sawiro bilaa backgrounda ayaynu insha allahu tacaala halkan soo gashan doonaa si aad sawirka backgroundka uga soo jarto waxaad tegi doontaa halkan Chrome browserka markaad tagto waxaa jira website aan shalay toole idin soo tusay intii nala socotay websiteka waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa www dot markaad qorto waxaad qoraysaa remove.pg saasaa ku qoran waad iga arkaya kadibna kan aynu baaraynaa waynu gelaynaa insha allahu tacaala gudihiisa go baynu odhanaynaa kadib markaynu gudihiisa galno
halkan waxa uu ku leeyahay sawirkaad backgroundka ka masaxayso kusoo dar sawirkeenu kusoo dari doonaa gallery-gan tegi doonaa kadibna sawir baynu kusoo darnay sawirkaas baynu kusoo darnay backgroundka markaaba uu ka masaxayaa si fiican buu uga masaxay kadibna download baan oran doonaa insha Allah tacaala markaan download idhaahdo waa uu soo degi doonaa insha Allah tacaala sida arkaysa waa uu soo download garaysmay sidoo kale dib ayaan hal talaabo uga noqon doonaa kadib mar labaad sawirkii gabadha ayaan backgroundka kasoo jari doonaa markaas halkan ayaan dib uga soo upload garayn doonaa kadibna waadiga arkaya sawirkeedii hadda backgroundka laga jarayaa backgroundkii baa laga jaray kadibna iyadna waan soo download garaysan doonaa marka waxaan haystaa labadii sawir oo aan soo download gareeyay oo backgroundkan kasoo jaray labada sawir ee lamaanaha lagu soo diro qaabkaas backgroundka kasoo jari doontaa website-kan insha Allah tacaala linkiga hoose ayuu insha Allah tacaala inoo yaalaa waad xifdii doontaa insha Allah tacaala website-ku waa free 100% intaa kadib waxaan ku noqon doonaa application-keeni Pixel Lab oo aan ku edit gareynaynay kadibna application Pixel Lab markaynu sidoo kale soo furno okay waxaanu gelaynaa project-geeni hore aynu soo diyaarsanay kadibna halkaas calaamada wadarta ayaan tagi doonaa si aan labadii sawir ugu soo daray lamaanaha ama kabaliska inta kadib halka from gallery ay ku qorantaan ku dhufan doonaa inta kadib waad arkay sawirkiisa waan ku soo daray runaantii si fiican ba sawirkiisa ugu soo daray waxay hadhay sawirkeedii iyadna waan ku soo daray insha Allah ayadna halkaas aan ku dhufan doonaa mar labaad kadibna waad arkaysaa qaabkan sawirkeedii ugu soo darayo sawirkeediina waan aniga ku soo daray sidaad arkayso halkani backgroundkay waxay kasoo sareeyaan runaantii colorkan bluega kan ayaan kasoo sareysiin doonaa insha Allah tacaala si aan uga soo sareysiinana waxaan tegi doonaa halkaas baan tegi doonaa insha Allah tacaala halkaas markaynu ku dhufano kadibna kan ayaynu korka soo marin doonaa kor baynu u jiidi doonaa halkaas baynu saas aynu u qabanaynaa gacantaas ay ugu riixay deetana korka ayuu soo maray kadib waad arkaysaa inay ka hooseeyaan kadib kan ayaynu qufulka ka qaadi doonaa si aan u edit garayno aan u jiidino aan u leegaysiino wadiga arkay inuu jiidi karnaa saasaynu u jiidi karnaa saan doonaynu u jiidi karnaa laakiin saasoo kale aynu ka dhigi doonaa insha Allah tacaala kadibna markaynu saasoo kale waxoogaa ka yara dhigno kadibna halkaa shaybiska barta kaan tegaynaa calaamadaas kadib markaan tagno iyadoo inoo highlight garaysan tahay xaggan aynu socon doonaa waxaan gelinaa waxoogaa yara stroke halkaa stroke ay ku qorantaan ku dhufan doonaa kadib markaanu halkaa ku dhufanno waxoogaa baan stroke yara gelinaynaa caddaan baa imika galay caddaan uma baahnin noocaasoo kale aan yara gelinayaa kadibna saasaan u yar weyneynaya halkan ayaa laga jiidaa ilaa iyo meelaha 7 ka dhig ama 6 insha Allah kadibna okay dheh okay waxaan jeclahay inaad dhamaantii fahanteen kadibna waxoogaa hoos baan usoo yara dhigayaa waxoogaa in yar baan hoos soo dhigayaa waxoogaa aan soo yara gaabiyo okay kadibna isaga quful baan ku xidhanayaa halkaas baan ku noqonayaa sida quful loogu xidho waan aragnay kadibna isaga qufulkaas baan ku xidhayaa waan taabanayaa si aanu iga dhaqdhaqaaqin oo markaan kuwa kale riixaya aanu iga raacin iyadan hoos soo yara dhigayaa lamaanaha kabaliskan hoos soo yara dhigaya waan habaynayaa si fiican baa u qurxinayaa kadib markaan saasoo kale u qurxino hadda waxaynu haray inaynu qoraalkii ku qorno halkan inaynu ku qorno happy engagement halkan oo kale inaynu ku qorno magaceedii magaciisii magaca aabihii iyo magaca aabaheedii ama abtirsiinteeda dee saddexdeeda magac kadibna goobta iyo goorta fargaladii inaynu qurxinayno u baahannahay way la soconaysaa insha Allah tacaala qoraalka marka ugu horeysa halkaas ayaan tegi doonaa calaamada wadarta kadib markaan halka calaamada wadarta aan tago kadibna waxaan tegi doonaa tagas baan kusoo dari doonaa halka sare ugu qoran tahay tagas ayaan ku dhufan doonaa si aan qoraal ugu soo darsado kadibna tagaskaas baan 2 goor kali gacanta ku siinayaa insha Allah kadib markaan 2 goor gacanta ku dhufto waxaan ku qori doonaa happy engagement meher waxa doonta ku qor happy engagement bayna ku qoraynaa kadib markaan happy engagement ku qornay waad arkaysaa runaantii kadibna halka eed ayaan tegi doonaa ay ku qoran tahay hoose iyadoo halkan inoo highlight garaysan tahay fartu tiyo sidan inoogu highlight garaysan tahay kadib markaynu halka tagno halkan ayaynu u socon doonaa ilaa meesha AB ay ku qoran tahay aan gaarno kadibna halkan my frontispian tagayaa aniga far aan garanaya ayaan ku soo darsanayaa oo aan website-kii aan idin tusay aan kasoo download garaysanayo aan kasoo download garaystay runaantii qofkii aan nala socon oo aan website-ka hore aan arag meeshaas qaabka farta loogu soo darsanayo inuu ku soo darsado waa muhiim waaye far qurux badan aad u qurux badan runaantii heli maayo qofkaas waad arkaysaa fartu aad buu yar yaraatay waan ku soo daray kadib xaggan aan u soconaya halkaas size-ka ayaan kordhinayaa deetana farta ayaan waaweyneynaya insha Allah farta markaan yara waaweyneeyo waxoogaa waan si yara weyneynayaa okay farta markaas ayuu waaweynay kadib waan tigaraynaya kadib halkan aan hadana mar labaad u socon doonaa waa inay fartu ay highlight garaysan sidoo kale waa inaan meeshan ay ku qoran tahay inaan joogo muhiim
sidoo kale halka b ay ku qoran tahay tegaya halka b da ta koornaha taabanaya oo bold u taagan fartii oo yara waaweynayay hadda si fiican bay u soo muuqataa kadib haddana waxaan tegi doonaa halkan waxaan kusoo dari doonaa magaceeda iyo magaciisa waxaan kusoo dari doonaa magaceeda iyo magaciisa ka hor laakiin intaanan kusoo darin waxaan kusoo dari doonaa faraantiydii ama fargalladii kadibna halkan calaamadda wadarta ayaan tegi doonaa kadibna waxaan tegi doonaa from gallery halkay ku qoran tahay halkan ayaan ku dhufan doonaa kadib markaan halkan ku dhufto kadib waa sida arkaysa waxaan kusoo daray fargalladii kadibna size-ka ayaan yareynaya halka koornaha ayaan qabanaya halkaas dhibicdaas ayaan qabanaya si aan u yareeyo saas baan u jiidaya labadii faraanti waan kusoo daray saas baa loo wareejin karaa inta halkaa la qabto halkaas baa laga rotate gareeya horeyna usoo aragnay qofkan shaybiska qaabka loo isticmaalay arag muuqaaladii hore insha allahu tacaala soo daawan kara doonaa sidoo kale telegramka ayaad ka heli doontaa muxuu ahaay bahashan muxuu ahaay waxaan materialkan aan soo geliyay oo dhan dhammaantood telegramka ayaad ka heli doontaa sidoo kale magaceeda iyo magaciisa ayaan ku qori doonaa waan dedejin doonaa goobta iyo goorta ayaan ku qori doonaa kadib haynoo ahaato markaan soo design gareeyan soo qurxiyo haynoo ahaato insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in adiguna sideedoo kale usoo qurxin doonto wow sidaad arkayso waan soo qurxiyay anigu waana soo dhaweeyey waana soo habeeyey sidoo kale waxaan kusoo qoray farta ayaan kusoo qornay waan soo design gareeyay run ahaantii ducadii baan kusoo qoray run ahaantii taariikhda waqtiga meesha ayaan ku qornay ama goobta iyo goorta iyo waqtiga ayaan ku qornay sidoo kale ducadii ayaan ku qornay aad iyo si qurux badan baan u soo design gareeyay waxaan rajeynayaa in sideedoo kale u soo design gareysay haddii aad sticker-kan run ahaantii u baahan tahay kaliya waxaad ka heli kartaa barta telegramka si aad noocan oo kale u design gareyso noocan laftiisaan kuu soo dirayaa waxaan kuu soo dirayaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaahdo waxaan kuu soo dirayaa materialka oo dhammaystiran designka oo dhammaystiran wax kasta waan kuu soo dirayaa waxaan jeclahay inaad insha allahu tacaala nala socoto oo insha allahu tacaala aad barta telegramkana aad nagala socoto sidoo kale berito hore insha allahu tacaala waxaanu design garayn doonaa sidaan hore uga ballan qaaday kan ayaan design garayn doonaa insha allahu tacaala aan soo dhaweeyo noocan ayaan design garayn doonaa effectiyada leh run ahaantii oo aan si qaybta hoose lama arkayo run ahaantiisa kuu muuqata ama waa khafiif run ahaantii waxaan jeclahay aniga kan ayaa aad iyo aad igala qurux badan insha allahu tacaala designkiisu waa ka duwan yahay insha allahu tacaala dadka dadweynaha nagu xidhan run ahaantii waxaan jeclahay inaad diyaar tihiin insha allahu tacaala tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kala lamid ah waa bahda islamic technology idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu